بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigu maanta wuxuu ku saabsiisay التصبيح. waxaanan u doortay bishan ramadaan maadaama lagu jiro iyo caalamulislaami maanta waxa ka socda daraaddeedba. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitnة wailayna turjacuun. naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala, oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadh iyo hadday macaantay, hadday adagtay iyo hadday fududdahay, hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba, ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa. waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari waalkhayr. sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyay subxaanaه wa tacaala. khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaamay sidii nebi sulaymaan ba loogu itixaamay, oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn, imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala geliyo uu ku guulaystay. dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey. dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay. qaar la dilay, qaar bukooday, qaar la xidhay, qaar la caymadiyey, qaar dalka laga saaray, qaar dab lagu riday. mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay. haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya? waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaanaه wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. innagaa layna faray inaynu dadaallo, laakiin markaynu dadaalkana nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno. waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahay inta awooddiisa ah. laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha. haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey, dumar iyo carruur la tirtiray, dad gawaadhi la dulmariyey, qaar dayurada lagu garaacay, qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey, qaar naabaa lagu riday. wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima inuun kugu hadhsantay. qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah, laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala tiryaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo. dadkase in badan ay hilmaameen. ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay, ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla. qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah, tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah.
إلهي نبي الله محمد وحوت المامي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون هذا حق الشاق بالليل أنا كاكف لن كون ليلية كو إلهي غير كي عابد الدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحط المامي ساقو انتي ساريد بركي الليل شاق وحكى الله المامي دب كلو دريم يا هدنين يشرته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با إلهي وحنو أقنهي با إلهي لابتك عريد يوميسو وصاني لابتو عريد يوبين iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhaweyday tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhaweyntu ku daba galo halkaad istaagtaba yidhaahda waa beenti kan yarana adeer u ah nabi maxamed adeerkii rumaa daba socday abi lahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nabiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan حتى waxa loo diiday inuu wax sheegi karo wax la gaarsiiyay xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun yidhaahdaan Tufayl ibn Amr waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalaya ma wax sixro ضماد وينو قررنا إنه نبي جبوا يوم يدور وحلا يدي حوجا والية كويسان كدويو ريح دان طفاية وحبان أخرياية عديدي جو النبي قدريمي عليه الصلاة والسلام من طول لقي دنك كلا إلهي العاصي يسنا من العبد يا رب السماوات والأرض اللي قالوا بينه وتاجي لعلك باخع نفسك إلهي كلي نفترض عديدي قالين يسامها لا جيسه إن رمين ويانا الله سبحانه وتعالى درادت هذا بقى إلهي داوسي وحاصحنا اللابتي سكجميره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى التصبيح سال إلى أديكو كل هي أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التسبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عب يحمى كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمدنا وعكس كذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا دقوم حديثه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكر رئيسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي سبحانه وتعالى وحي داوك أغطى ضيق الصدر كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوير الصبر وحي كوهد ليامك صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس إيا التسبيح دويني وذا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تصبيح لك عليه أدقوا كمر يا إلهي حمدي قورمات لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره انت بتصبيح لك عليه بالليل واقو انتانو بريين تصبيح سو
gabalku intaanu dhicin tasbiixso habeenka bartankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixdaa iyo xamdiga haddaad wadaba ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa mufasiriinta badh baa halkan ku fasira salawaadkaa loo jeedaa laakiin culammadu waxay leeyihin wasalaatu hiya tasbiix salaadda lafteeda tasbiixa fii buyuutin adina allahu an turfaca ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال با إلهي كتل مام يسبح دان وحي مفسرين تو يسكن راعسيين إنay tahay maxay salaadii ama se dee salaada waxyaabaha ugu weynee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ninkii salaada ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi ina hadihi الصلاة laa yaslaxu fiiha شhayء min kalaami الnaas inama huwa التصbiix والtakbiir وaqira'aة الqur'an walidalik bay culammadu waxay dhahdaan 7 meeloodoo salaada ka mida la tasbiixsadaa salaada iftitaaxeedu waa tasbiix سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القصة ما هي صلاة وتكبيرا وتصبيح إلهي سبحانه وتعالى لولا يماده ركوع هي السجود ندوى تصبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إمس نوع التصبيح صار مركل الركوع سيء مركل الركوع سيء كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إمس نوع صار ركوع هي السجود هي نوع التصبيح هي التحميد haddaad qur'aan akhrido oo aad aayad tasbiixa soo martana waa la tasbiixsadaa intaad salaada ku jirto qofkaan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanulfaatixa iyana waa tasbiix markaad salaada adbaara sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar waa innagaan idhaahna markaynu salaadaha ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucdoo xamda la socoto samica allahu liman xamidoo xamdala ah sujuudoo xamdala la socoto inta kalena waa taxmiid yani salaadu waa subxaana allahi wabixamdihi ficla walidalik baa nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxaa cidhiidhi haysta wuxuu kaga baxayaa inay tahay فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قور رميه نبي أنبياء إلهي كمده وعديدي قالي مال أدك دعي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دينا كلون لقي وعلال كلون كسيشرة انتو بد قرقامي هداد بيها ومسكر حسابين يسوي لي الرجات قبطايه كلون علوشي كشرة أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محاكا عديدي بدن محاكا ورور بدن إن أدبط كل عضو وقاد لعسكد لحين وهدنا نمري كلقه وهذا علول نمري قشو ماشا مدو مركا وقاله إلهي وحولي فنادى في الظلمات مقدية دا حدود وكرنا واقي محو كرنا واقي أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعقود واقع لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين إلهي وادقا كلي لغو عابده سبحانك حمك أوفنان تادا عيبك فوقان تابو لي وحط المامية أعماشي سسمية وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بيسق الظلمين إلهي يو لست بظلام للعبيد بولي بل إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحينا وشاق إنه كبد بادي سببتها درادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدي أنو كم دهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبدو حيلين قوة تصبيح صدا وحلوغة شهدا في بطن الحوت قوة تصبيح صدي مفسرين تبدو حيلين أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حصي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهين با إلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكو جري لها هالكاسي إلى ينت لغا صبحين يا رب لي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة ترياقة أما داود النبطة إعديني قلابات يعرض لغا قبحه يعيلك لغا قبحه عموما وإلهي ذكره مركهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآنك سيت المامي مركا سي أذكار تقار كمده ذكر إلهي سيت المامية وهي تصبيح ده مررك قارك بضيع علماء كفصران الذكر كله هنا التصبيح يهي إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامية مركا سيت داوة ينوت بل عكس جنوة كداوة آدنه مركو حوق يحوله يوح هلنا ينا كبر كو قادة كبر كنوة كداوة مركا وحال النبي محمد عليه الصلاة والسلام markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uu laazim baa lagu yiri إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا markaad aragto ilaahay guushiisu inay ku timi iyo furashadu ay ku timi waad aragto dadkoo diinta soo galaya maxay sameeyay baa ilaahay yiri فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركي قوليستان وي كبران دبتنا waxay dhahan waa maalintii xorriyada waa maalintii xoog la soo bandhigo waa maalinta dadkoo dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadasho dhamina maxay ku hadashaa waa guuleysanay waa xoogaysanay waa iyaga sheega maalmaha xorriyada iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheego dhan aadanuhu isaga sheega ilaahay setaayna ma amrin إلهي وحينا أمري هداد حصيسان مركات دارنتد نعمة الله سبحانه وتعالى إيه تقول يسته إيه عدو كار دعوه إلهي كار ريبه إيه مبدأ وفافه إيه تذكر رأي قاقات دين تلا صاقله تانا أبا المركدي شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنتانا إلهي ينبال الشيقة ما أنت دبت لغو جيرنا إلهي ينبال الله حصايا الله شيغا ما أنت برادها لغو جيرنا إلهي ينبال الله حصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي ينبال الله حصاه سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح قفكم مركز سجود معيد هذا سبحان الله أبو داير هذا مركز سجود الصوت الله ما يراد سبحان ربي الأعلى بالله يراد نعم كمركز شوفوا دارك الله دقه إذن إلهي وحينا تلماما سبحانه وتعالى عافمات كآدنه إنه كتر إلهي شيك جيسة إيا أمان تيسة إنه كتر عافمات كبني آدمك هدي عليل أدلك ولنته عليل وهذا عيل بني آدمك بضي أما هالنغضو مصايب كلوك وهبستي سيدتا ذنوبتو كدلتي يا عماشة سميسو
sida mushkilaadka qadarta la kulantay nebi yuunus oo kale ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu aracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabbixna waatayr ilaahay wuxuu inooga warramayaa nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhammi inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyahy tusabbixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاlطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyahy miyaad ogayn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay ay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahay ina maqashiiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abu dar alghifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka طabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibnu اlxajar alcasqalaani inuu leeyahy rijaalkiisa o dhamme waa hiqaat inii shaahidun cinda الnabiyi salى allahu calayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku haya calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahy abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaan allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantayna tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilayna buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed
iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlu sunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidka nin kastoo uu ka durugsan yahay afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bal abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalla warinaya waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshoo dhan in la gubo oo ilaahay kuu waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagtay yacni lowlaa waaxida hallaa waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxiba tasbiixdan iyo taxmiidan daraaddeed ayaa tasbiixda 7 suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurati اlxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilahi ma fi samaawaati wama fi اlardi wahuwa alcaziizu alxakiim ayay suurati اlxashrina ku bilaabmantaa suuratu safna ku bilaabantaa suuratu اlxadiidna ما في الأرض قنباء والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيدو مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تضب السورة دو قرآن كمدة أي إلهي تسبيح دينا أقول بلابي سيلينو درينسية مهمة ديدا شن كمدة نحمد لدى الله أقول بلابي دي الحمد لله رب العالمين يا أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شن سورة دو كمدة qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tira ma leh idan ayuha alaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixdu iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البضي وحاصرا كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كاد البي بولي هارون إن النبي يقدكته ولا الكي هارون إن النبي يقدكته ويقحو جسد وأرنك إلى ودا جسد وايو كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا markay kaalmada dalbadeen fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fir'auna innahu tagha maxaa fircoon markuu tagayay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fircoon ka xoog badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga ba ilaahay yiri zaadkiinu laakiin waxa weeyaan wala taniya fi dhikri hakanogin wanaga xuskayga سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله دي وحي لمده كوا هكنوغنا با إله إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بين سين صوشيغنا وكغا ورمي نبي الله موسى إلهي كورمي يا مركي نمعدو عصبوناتي ربي مركو ويديستي انتو جعلادي انو أركو إلهو أنكو أركا ليري إلهي سبحانه وتعالى وحو يري أركي كريمي سيبال هذا بورتان إيك hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumaadigaa ka dheer
وأكو توبت كان يبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي ككوادك الرميين أنا دونك لغوارك كارين نبي الله زكريا مركو ضلبدين وآيات هلو إلهي بو بري عجب قبطه كرامات كي مريان مركو أركي أيو بري عجب قبطه إلهي ويديست ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا إلهي بو بري عجب لبري بريض بري يا وامحي waxaan dunida ka suurtagalahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way cadaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورمي نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يردتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقنا يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوح والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جد كيو سجانا دتك وغير الراعيانة أنا جاي أنتي الراع ضيبة وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحين ورمياه مخلوقات كأكتي سكد دو ملائكة الله إلهي الشقد ودبينيتي وإنا لنحن المصبحون بيلين وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكيي أدوات التوكيد ليس جوجي أي كشيغان يان ملائكته شقد ودبينيكاتي وإنا لنحن المصبحون إلهينا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون كلا قوم له وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحينا ورمى جنة دتك اللقيانة إينا شقدود ويني كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي يغنى شقدود أبا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه قرآن كسيدة وبالبلادية أنت النصوص كتجانا سوق هذا ناي كبد أنت عن شيء ويا قربان السلوان قري كريواي قرآن كأنت قصار ورتي تسبيح هي تحميد ترمله بي أبدنتي إلهي سبحانه وتعالى ينفر أيه قار والبا وقت كستو آدنا وشيء كرؤون قرآن كوحكوت الله يدل لي تسبيح صدا صبح هبين صغر حي وبري حد قدع قور كستبا إلهي وحلي تسبيح صدا إذا تسبيح دو حي كمتهي وردق مركه هرم مطلقا بي كمتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيقاد أتربض الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنة
أحاديث هداد أخذوا النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كسار أرتي أما حمد كسار أرتي أدبي وترب ذينينا تلمامي النوعيات كالتصبيح ذا الله لي ماده دي صلاة الدمان تدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء وحده صبحة الضحى أما وك عمر لقاش جينوا لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا أنت بدن تصنع الله يراه لكن مفسرين بدن باب حقبان مع تكلين الله يراه قورما وقت والبوالة تسبيح حالة كستات كتشرته مركاد يابتا سبحان الله الله يراه مركاد بيكو قبصتا سبحان الله وبحمده الله يراه مركاد نمعاد هشو أما يكو عصبوناته ayaa la yiraahdaa farskaaga markaad fuulaysaa la yiraahdaa ama daabadaada gaarigaaga subhana alladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin nimca cusub markaad hesho sidii nabi Muuse la yiraahdaa subhanak markaad ducaysanaysaa la yiraahdaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu markaad dambiga qiranaysaa la yiraahdaa qisadii suuratu nuun ku taala ashaabul jannah قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون إذن حل كسته هذا يدبك وهيسته هذا ينمعك وهيسته هذا ديابنتهي هذا وحكسته الظروفات كمدة ولا تصبيح صدا تصبيح ده سمرهات كجوسان السانة كوين الدم بدافشه نبي عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهده مالن بغلشر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنبي سال دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حور كبده وكله هدي لم موجد بده هدي ليكتهي والله دافا ابو النبي عليه الصلاه والسلام دنبغاغا لو دافيا وحي شده يدبكو هيستا لغاغا دافيا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فلولا انه كان من المصبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وحي عديد لابتكاغا جرا لغاغا دافيا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل علماء وحيلين انشراح الصدر قود البضي نبي موسى وحيد هذان وثمرة التصبيح والتصبيح السبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب اشرح لي صدري